okay casharkeen caawa u qaybin tusaalihii koobaad waxaan isu qaybin doonaa 955 ba waxaan u qaybinaynaa 595 ba waxaan u qaybinaynaa 7 tusaalahan waxay u taagan tahay tanutii la qaybinayay tanna waa ka loo qaybinayay kaba soo qaad 7 qof ayaa waxaa soo dhex martay lacag ah 595 marka waxaan fiirinaynaa qof kasta intuu heli lahaa iyo isugu qaybsami lahaa sidaas oo kale tusaalaha weeye okay waxaan isu qaybinaynaa xisaabta markay isu qaybisana tahay waxa lagaaga baahan yahay marka stepka koobaad waxa u horeeya aad fiirinaysaa inuu noqoto numberkan wuu qaybsami karaa kan hadday tahay sababtu si toos ayaa isu qaybinaysaa ama u baahan inaad soo boorugalisatay kuwan haddii aysan labadan isu qaybsami karin waxay noqonaysaa numberka ku xiga inaad ku qabato labadan isku qabato kadibna kan aad u qaybiso haddii saddexdan ay isu qaybsami karin kanna waxay noqonaysaa inaad sidoo kale samayso okay hadda 7 iyo 5 waxaan ognahay 7 weyn tahay 5 yartahay marka 5 uma qaybsami karto 7 sidaa darteed waxaan u baahannahay 59 isu qabno 7 u qaybino okay waa maxay numberka marka 7 aan ku dhufano na siin kara 59 ama ku soo dhawaan kara xisaabta isku dhufashada iyo qaybinta xiriir weyn baa ka dhaxeeya waxaan ognahay 7 marka lagu dhufto 7 lagu dhuftay 7 inay tahay 49 49 way ka yartaa numberkan laakiin number kale ayaa u sii baahan oo ku sii dhow kan because aad bay uga fog tahay number ku dhow ayaa loo baahan yahay waxaan samayn karnaa marka numberka ku xiga inaan qaadano weeyo ornaano 7 lagu dhuftay 8 7 lagu dhuftay 8 waxay tahay waa 56 56 aad bay ugu dhowdahay waxa u dhaxeeya waa 3 number sida la leeyahay waxa geli kara halkaas oo aad ugu haboon waxa weeye markay noqoto 7 iyo 8 waa 8 sida la leeyahay 8 baan kor saaranaynaa marka saaranayso kan uu qaybsamo way korkiisa inaa saarta maahan labadooda marka la isku daro u qaybsamayso 9 korkeeda inaa saarna way 8 halkaas ayaan ku qornaynaa 8 lagu dhufto 7 waa 56 baad ku hoos qoranaysaa waad kala jaraysaa 6 laga jaray 9 laga jaray 6 waa 3 5 laga jaray waa eber okay stepki koobaad waan dhameynay 3 uma qaybsami karto 7 way ka yartahay sidaa laaligeed waxaan u baahannahay inaan soo dejino 5 okay hadda 5 iyo 3 way u qaybsami kartaa 7 oo waa number labadan hadda ay weyn yihiin waxaana siin karaa marka 7 lagu dhufto 5 iyo 3 waxa weeye waa 5 sidaa darteed kor waxaan saaran karnaa 5 lagu dhuftay 7 waa 35 laga jaray 35 waa eber markaan isu qaybinay waxaa soo baxday 85 oo wax haraadiga aysan jirin haddii halkan hal ama laba ay soo hari lahayd haraadi bay noqon lahayd sideeda uga tegi kartaa haddii aad u baahato inaad sii qaybsana waad usii qaybin kartaa dabcan waxaan rajaynayaa tusaalayaasha dambe inay ku yimaadaan nin kasta oo ka mid a intii wuxuu helay 85 haddii aad u baahato waad hubin kartaa waadna heli kartaa xisaabtaadii hore adigoo jeegaraynaya waxaad samaynaysaa 85 space halkaas ku banaan yahay waxaad samaynaysaa 85 let's say check 85 ba waxaad ku dhufanaysaa 7 adigoo fiirinaya in xisaabta gudaha ku jirta ay ku soo baxdo 7 lagu dhuftay 5 waa 35 5 ayaan qoranaynaa 3 ayaan ka hirgaraynaynaa 7 lagu dhuftay 8 waa 56 ilaa kii aan wadanay 59 numberkan waa la mid sidaa darteed xisaabteena waa sax